السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا وركا في النماه اللميديا وضبضا عاوية كداوان دونتانا وحقايبكا wararkii ugu dambeeyay hawlgalka lagu baadigoobay kooxihii dadka ku laayay magaalada Galkacyo isadii ka dhalatay xilka qaadistii dabageed oo aan weli xal laga gaarin wadi isugu jira wasiiro iyo xildhibaano maanta gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan qaraha qasaare geystay oo ka dhacay gobolka Baay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay in Soomaaliya aysan ka jirin xilligan walaac laga qabo cudurka Ebola baraadka dibadda idin haynana waxa qayb ka ah dawladda Turkiga oo cambaaraysay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo markaasi dawladda Britain iyo Norway oo lagu eedeeyay horinta khilaaf xuduudka badda ee Soomaaliya iyo Kenya qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka fiidnimo markale isku soo noqod haboon saaxiibayaal ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan waxa weli xal markaasi buuxa laga gaarin xiisadii ka dhalatay xilka qaadistii madaxweyne Waare uu ku sameeyay gudoomiyihii gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed magaalada Beledweyne ayaa weli waxa ka socda kulamo kala duwan oo u dhaxeeya qaar ka mid ah waxgaradka magaalada Beledweyne iyo guddi wasiiro oo madaxweynaha Hirshabeelle u saaray xaaladda Beledweyne magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa maanta tagay xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka Hirshabeelle si ay uga mid noqdaan mas'uuliyiinta Beledweyne oo tagtay inay xaliyaan khilaafka madaxweyne Waare iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan ee xilka qaadista lagu sameeyay Yuusuf Axmed Hagar Dabageed xaaladda magaalada Beledweyne ayaa deganayd maalmihii ugu dambeeyay waxaana magaalada ku sugan ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidanka dalka dawladda Djibouti ee ka howlgala gobolka Hiiraan qaar ka mid ah waxgaradka magaalada ayaa sheegay in ay doonayaan in ay waawaan ku dhameeyaan xiisadii ka dhalatay xilka qaadistii gudoomiyihii gobolka Hiiraan madaxweyne Waare ayaa 13 bishan dibadbaxyo careysan iyo ciidamada daacad oo ah Yuusuf Axmed Hagar Dabageed u diiday in ay gudaha u galaan magaalada Beledweyne waxaana weli ku sugan yahay xerada ciidamada Amisom howlgal weyn oo lagu baadigoobayo kooxdii habeen hore dadka shacabka ku leysay koonfurta magaalada Galkacyo ayaa 24 saac la soo dhaafay ka socday magaalada Galkacyo iyo sidoo kale deegaano hoos yimaada sida ay markaasi warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka Galmudug waxa ay gacanta markaasi lagu soo dhigay qaar ka mid ah kooxdii dadka shacabka ku leysay magaalada Galkacyo kuwaas oo dhawaan maxkamadda la horkeeni doono howlgalladan ayaa waxa hogaaminayay taliye ku-xigeenka booliiska Galmudug Korneel Xabeeb waxaana gacan siinaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan Galkacyo ciidankan ayaa saacadihii ugu dambeeyay kala saarayay dadkii lagu soo qabqabtay howlgallada oo la sheegay in ay yihiin dad badan oo laga soo qabtay xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Galkacyo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta waxa gaaray wafdi ka socda dawlad goboleedka Hirshabeelle iyadoo si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyay wafdiga oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa markii ay gaareen garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee Beledweyne waxa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo xubno kale sidoo kale mas'uuliyiinta ayaa waxa ay kulan la qaateen Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble kadib markii ay ku booqdeen guriga uu ka degan yahay Beledweyne isla markaana waxa ay ka wada hadleen arrimo ku aadan khilaafka ka taagan gobolka Hiiraan iyo tan magaalada wararaan helayno ayaa waxa ay sheegayaan in ujeedka wafdiga ka socda dawlad goboleedka Hirshabeelle ee isugu jira xildhibaano iyo wasiiro Beledweyne ay u tageen ay tahay xalinta khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha iyo markaasi gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta qarax miinan nooca dhulka lagu aasaa waxa ay kula kacday duleedka degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay
qaraxaas ayaa ciidamada koonfur galbeed waxaa ka soo gaaray khasaare kala duwan waxaana mas'uuliyadiisa dusha u ritay dagaalamayaasha al-shabaab laba askari ayaa la sheegay in ay qaraxaasi ku geeriyoodeen kolonyadii ciidamada koonfur galbeed waxaana jira weli dhaawacyo aan la ogeyn tiradooda rasmiga ah wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya oo jawaab ka celinaysay dareenka bulshada Soomaaliyeed ee ku aadan xanuunka Ebola ee laga helay dalka Uganda wasiiradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur ayaa sheegtay in Soomaaliya aysan ka jirin xilligan walaac ku aadan in uu ka dilaaco cudurka Ebola oo kiiskiisa laga helay dalalka dariska imikana akhbaaraadka dibadda dawladda Turkiga waxa ay sheegtay in ay si kulul u cambaaraynayso labadii qarax ee shalay ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ee lagu dilay 8 qof hadal qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa lagu sheegay inay aad uga tiiraanyoodeen markii uu soo gaaray wararka ku aadan qaraxaasi taasi oo dad badan ku geeriyoodeen halka dhowr kalena ay ku dhaawacmeen dawladda Turkiga waxa ay sheegtay inay tacsi u dirayaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo qoysaskii ay dadka kaga geeriyoodeen qaraxaasi waxayna caafimaad u rajeeyeen kuwii kale ee ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay isgoyska sayidka iyo agaarka wadada toos u tagta garoonka diyaaradaha aadan Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho ugu yaraan 9 qof ayaa ku geeriyooday in ka badan 25 kalena way ku dhaawacmeen qaraxyadaasi oo loo adeegsaday gawaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa sida ay sheegeen hay'adaha ammaanka ugu dambeyntiina dawladda Kenya ayaa la sheegay inay ku hawlan tahay dadaallo cusub oo ay dawladda federaalka Soomaaliya kula xaajooto si loo dhameystiro colaadda badda ee u dhaxaysa labada wadan kadib markii ay fashilmeen wada xaajoodyadii hore saraakiil ka tirsan Kenya oo la hadlay markaasi warbaahinta ayaa sheegay inay Kenya buuxisay dacwad ka dhan ah dawladda Britain iyo Norway oo ay ku eedeynayso in ay horanayaan colaadda Kenya iyo Soomaaliya afhayeenkii hore ee dawladda Kenya Cyrus Ogana oo la hadlay Sunday Nation ayaa sheegay inuu wada xaajoodku yahay xalka ugu wanaagsan ee lagu xallin karo khilaafka Kenya iyo Soomaaliya waxa uu intaasi raaciyay in tubtaasi tahay tan Kenyan ahaan haatan ku raad joogan oo ay hiigsanayaan si xal looga gaaro khilaafkaasi talaabadan cusub ayaa timid kadib markii ay guddiga qaramada midoobay ee kormeerka cunaqabataynta saaran Soomaaliya ka digeen in ay sahminta dalalka reer galbeedka ee shiraalka Soomaaliya ay colaad hor leh ka horin karto Soomaaliya gudaheeda khilaafka Soomaaliya iyo Kenya waxa uu sare u kacay bishii Agoosto ee sanadkii 2014 kadib markii dawladda Soomaaliya ay dacwad ka dhan ah dawladda Kenya uga gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ee ICJ oo fadhigeedu yahay magaalada Hague ee dalka Holland Professor Peter intaas ayaa ku soo gabagabeynayna saaxiibayaal warkii fiidnimo aad kala socoteen Hilla Media inta warka xiga ku kulmayno nabadgelyo